iyadoo gobolada koonfurta iyo bartamaha dalkeena Soomaaliya ay ka socdeen hawlgallo lagu ciribtirayo maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab ayaa hawlgal qorshaysan ay ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada u dhaxeeya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. ujeedka hawlgalka ayaa ahaa sidii loo burburin lahaa meelaha ay gabaadka ka dhigtaan maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab ee caadiystay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska danab ayaa hawlgalkani oo ahaa mid qorshaysan ka sameeyey deegaano ay ka mid yihiin Fiidow, Shaw, Buurweyn, Jubiley, Xarar Lugoole oo ka mid ah deegaanada u dhaxeeya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa burburiyey gebi ahaanba meelihii ay gabaadka ka dhigan jireen maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab iyagoona khasaare xogan gaarsiiyey maleeshiyaadka argagixisada ee deegaanada hawlgalka laga sameeyey ku dhumaalaysanayay. deegaanada ay hawlgalka ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska danab ka sameeyeen ayaa waxay qayb ka yihiin meelaha ay ka soo abaabuli jireen weerarada iyo qaraxyada ay ku dhibaataynayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. taliyo ku-xigeenka guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed danab gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure oo hogaaminaya hawlgalka ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay in hawlgalku uu qayb ka yahay hawlgallada lagu ciribtirayo maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab waxaana uu xusay in lagu burburiyey meelihii ay ka soo abaabuli jireen dhagarta ay u soo maleegaan shacabka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka ayaa gobolka Hiiraan ka waday hawlgallo ay kula wareegayaan deegaano dhowra isla markaana nabadiidka jab xoogan ay ku gaarsiiyeen hawlgalladaasi oo ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah shacabka deegaanka